madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane abdicasiis xasan maxamed laftagaren iyo wafduus hogaamiye yaswiin lahan ka dhawaay magaalada xudur ee gobolka bakool gureed booqasho maalmo qaadada doonta oo ka rooga doona magaaladu madaxweyne abdicasiis xasan maxamed laftagaren iyo wafdijeemay qayb ku hayay wasiiro sanatara la taliyaal iyo taliyaha qaybta 6aad ciidanka xooga dalka garoonka diyaarado ee magaalada xudur may ka dhawaayay wafdiga madaxweynaha hogaamiyay wasiiro ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed maamulka gobolka bakool kan degmada xudur saraakiil ciidan iyo qaybo shal duwan bulshada magaalada xudur ee gobolka bakool hadhawaayo iyo ismarxabeen kureed madaxweyne abdicasiis laftagaren iyo wafdiga iyo lahangalbiga qasriga madaxtooyada gobolka bakool ee dowlad goboleedka koonfur galbeed meelaas oo uu kala hadlay warbaahinta gudoomiyaha maamulka gobolka bakool shiina macalin nuurow iyo duqa degmada xudur maxamed macalin oo iyo koreen warbaahinta la hadleen mayon kuma hadnagana madaxweynaha booqashadu saakadeeri degmada xudur ee gobolka bakool salaam kadib iidan ka faraasna madaxweynaha dhawaaw adiga wafdiga dhawaada iidaaseen ka faraasna kooxin walbadan istaanbeeseen ka jarnay alxamdulillah ilaahay hasan aruuriyo oo nabadaniisaan ilaahay ma ka maasan iidan ka faraasna hasan dhawaayni dadweynaha reer xudur way la socotaan ani dadweyne eedan dawlad jeelayn ilaa alasay dhatan surunayeen dhawaada madaxtooyadii sharafta laaytay wal gobodkii ka walaanka badanay macnaha markasta la xusaw ee tamaan arday meel raayis oo sharafta laaytay ha ka dhawaaw oo macnaha caasimada gobolka bakool degmada xudur wali kooytay meelkii jeeli wali kooytay macnaha meel raayis maamul goboleedkii ka gobolkii kumadahay goboladii gobolka kumada waa kooyti wali ha ka dhawaayeen niyad furan adiyo wafuudaba madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane abdicasiis xasan maxamed laftagaren oo kuura galow nololo bulshada iyo xaaladda gobolka iyo dhinijay ku hadlay socdaaljay magaalada xudur ee gobolka bakool alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale nabad isugu kaana keenay runtii waa taariikh maanta waxaan nimid booqasho ku nimid caasimadda gobolka bakool oo safarka anaga uu ahaa safarii horoon imaan jirnay uu daba socdo sidii aan u imaan jirnay ma cusbo si aan u ogaano oon u kuurgalno dareenka dadka iyo nolosha iyo waxay qabaan iyo baahiyaha jiro iyo daruufaha ay ku nool yihiin inaan la qaybsanno aan wareysano xaaladda meeshii maraysa aan warbixin kala qaadano iyuu ahaa safarka anaga sidii aan horeyna aan u imaan jirnay baan u nimid ujeedada ugu badanna waxaa weeye inaan guud ahaan gobolka bakool oo daruufo aada u adag ay ka jiraan dhibaateeyey shabaab go-doon iyo cunaqabateyn iyo mushkiladahaas oo dhan ay isugu darsameen dadaalo badan kadib bal inaan isxog wareysano oon sameyno wixii la qaban kara la qabto dadkana aan baahiyaha la qaybsano runtii waxaa nasiib wanaag ah oo maanta aada nasiib u hesheen safarka anaga ka hore safaradaba uu kaga duwan yahay sanataradii koonfur galbeed loo doortaa nala socdo sanatar sidiisaba wuxuu matalaa stateka marka sharafay noo tahay inay ayagoonan meel kala tegin ay soo booqdaan gobolka bakool oo aanan looga sheekeyn inay ogaadaan xaaladda ka jirta gobolka sidaasoo kale waxaa nala socdo la taliyaal ayagana inay ayagana xaaladda gobolka ku hurgalaan rabaan iyo taliyihii qeybta 6aad insha allahu tacaala waa iswarsan doonaa waxaan la kulmi doonaa maamulka gobolka iyo degmadaba waxaan la kulmi doonaa ururada bulshada sida caadada noo ahayd waxaan la kulmi doonaa odayaasha dhaqanka magaaladan geli doonaa arki doonaa mashaariicna waa furi doonaa kuwa cusubna waa dhagax dhici doonaa hadduu ilaahay yiraaho sidaasoo kale waxaan talo badan iyo nidaam badan aan la sameyn doonaa uu hogaaminayo taliyaha qeybta 6aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee guutada 9aad
arrimaha amniga ayaan si gooni uga hadli doonaa. aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa maamul iyo shacabka soo dhaweyntii diiranayd oo na soo dhaweysaan. waa ku mahadsantihiin. sidaasoo kale waxaan ka cudur daaranaynaa safarka annaga oo soo daahay, meel kalena aan soo marnay. aadan u dareemi karaa in sidii saaka loo istaagay ay tahay. ayadana dee waan kaga mahadcelinaynaa. ajir allah inka siiyo. waana ku mahadsantihiin sida aad dowladnimada leh iyo aada kalsoonida buuxda leh oo dowladdiina ku kalsoontihiin. waa ku mahadsantihiin. insha allahu waa si hoose iyo si kore waa u tashan doonaa. aadaa u mahadsantihiin. socdaalka madaxweyne cabdicasiis laftagareen ee degmada xudur ee gobolka bakool iyo qaadada doona maalmo usugoonantiisu ka sugunyi degmadan usunkuura gala doona xaaladda bini'aadannimo, tan amniga iyo weliba sidii wallankuga wada lahay go'doominta argagixisada al-shabaab iyo gelyan shacabka ka nool guutaan gobolka bakool. faysal maxamed isaaq, tv-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed, degmada xudur.